waxaa socda carro siyaasadeed hadallo kulul iyo weerar aan hore loo arag oo ka dhex qarxay siyaasadda Maraykanka, waxaana bartamaha u taagan oo dagaalka ka dhex muuqata xildhibaan Ilhaan Cumar oo si adag uga falcelisay aflagaadada, nacaybka iyo hadallada bahalnimada u eg ee madaxweyne Donald Trump uu la beegsaday jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota. Xildhibaanadu oo Khamiistii waraysi gaar ah siisay raadiyaha NPR waxay wiiqday dhammaan doodihii Trump isaga oo isku dayaya inuu abuuro cadow cusub si uu ugu qariyo dhibaatooyin waaweyn. Iyadoo hadalkeedu uu ahaa mid aan la iska indha tiri karin ayay tiri, weerarka madaxweynuhu waa xeelad siyaasadeed oo lagu indho sarcaadinayo shacabka Maraykanka, laguna qarinayo fashilka maamulkiisa. Ilhaan waxay si cad u muujisay in dhaqanka Trump uusan ahayn wax cusub. Waxay tiri mar kasta oo uu wajaho cadaadis sharci, fadeexad ama su'aal adag, wuxuu sameeyaa hal shay oo keliya: wuxuu weeraraa dadka ugu nugul, wuxuu canaantaa soogalootiga, wuxuuna abuuraa hadal nacayb badan si uu uga leexdo su'aalaha ay adag tahay inuu ka jawaabo. Xildhibaanadu waxay hoosta ka xariiqday in madaxweynaha haatan uu ku jiro xaalad quus ah, isla markaana uu qarinayo liis dhaadheer oo fadeexado ah oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya. Waxay farta ku fiiqday dhowr arrimood oo uu isku dayayo inuu ka qariyo dadka, eedeymo adag oo isaga iyo xoghayihiisa difaaca ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal, dhaqaale khalkhalgelin, qiimaha maciishadda oo cirka isku shareeray, iyo shaqo abuur aan gaarsiisnayn wixii uu ballanqaaday, iyo fadeexadda aadka u xun ee loo yaqaan faylasha Epstein oo ay Ilhaan ku eedaysay Trump inuu isku dayayo inuu qariyo si uu u badbaadiyo shakhsiyaad saamayn leh. Hadallada Ilhaan waxay ahaayeen kuwo holac ah, mana aysan daboolin. Waxay madaxweynaha ku tilmaantay oday maan doorsoomay oo isxakamayn waayey, hadalladiisana ku sifeeyey wax laga yaxyaxo oo ceeb ku ah dalka oo dhan. Weerarka Trump wuxuu qarxay Arbacadii markii uu ka hadlayay kiisaska musuqmaasuq ee Minnesota, isagoo aflagaadeeyey jaaliyadda Soomaaliyeed, kana dhigay bartilmaameed siyaasadeed. Wuxuu ku tilmaamay qashin, wuxuuna ku hanjabay in Ilhaan laga masaafuriyo dalka, inkastoo ay tahay muwaadinad Maraykan ah oo sharci ah. Ilhaan oo arrintan ka jawaabaysa waxay caddaysay runta jirta. Waxay qirtay in Minnesota ay jiraan dacwado xeer ilaaliyayaashu soo oogeen 86 qof oo lagu eedeeyey musuqmaasuq ku saabsan barnaamijyada cuntada iyo hoyga, kuwaas oo badankoodu Soomaali yihiin. Laakiin waxay si adag u diiday iskudayga madaxweynaha ee ah in dembiga shakhsiyaad kooban lagu eedeeyo bulsho dhan, waxayna tiri, sharciga Maraykanka, dembiga qofka ma noqdo mid loo saariyo kumanaan qof oo aan waxba galabsan. Waxay bulshada Soomaaliyeed ku tilmaantay dad sharci dhowra, dad shaqaysta, dad canshuur bixiya, dad wax ku kordhiya dalka, balse hadda si bareer ah loogu hayo olole nacayb wata oo loogu talagalay in lagu kiciyo shacab aan xog badan haysan. Ilhaan waxay ka digtay in hadallada madaxweynaha aysan ahayn oo kaliya hanjabaad afka ka soo yeeraysa. Waxay sheegtay in bulshadu ay haatan u diyaar garoobayso suurtagalnimada olole masaafurin ah oo lagu beegsado dadkeeda, xitaa kuwa haysta baasaboorka Maraykanka. Inkasta oo weerarkaasi uu abuuray cabsi iyo xasilooni darro, haddana xildhibaanadu waxay tiri, bulshadeennu ma aha kuwo lagu cabsi gelin karo, ma aha kuwo la burburin karo, waxayna u taagan yihiin midnimo.